waxaan dhammaantiin idinka codsanayaa inaynu shacabka u tunno madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland walaalkay Maxamed Cali Aw Cabdi maanta askarigu waxa uu mushaharkiisa toos uga helayaa khasnada qaranka dakhliga dawladda 3 biloodka koowaad January ilaa March waxa uu kordhay 9% marka la barbar dhigo labadii sano ee ka horreeyay xukuumadaydu waxay go'aamisay hoos u dhigista qiimaha korontada magaalada xeebeedka Berbera oo laga bilaabo July 2025 noqon doonta 20 senti waxaanu qaramaynay hubkii iyo ciidamadii madaniga ahaa oo aanu tababaro u bilownay kuwaasoo maanta cudud ku soo biirtay ciidamadeena qaranka xukuumadda Soomaaliland mowqifkeeda ku aadan imaatinka wasiirka koowaad ee Soomaaliya ee deegaanada bariga Sool ee Soomaaliland waxay ku cadaysay warmurtiyeedkii aan ka soo saarnay shirkii 16aad ee golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aan shir gudoominayay Arbacadii 16 Abriil 2025 kaas oo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku laashay wada hadaladii Soomaaliya mudane gudoomiye mudanayaasha shir gudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha maxkamadda sare madaxda xisbiyada qaranka xubnaha golaha wasiirada taliyaasha ciidamada kala duwan ee qaranka barasaabka gobolka Maroodijeex duqa caasimadda Hargeysa hogaamiyaasha bulshada qaybaheeda kala duwan haweenka dhalinyarada iyo guud ahaanba muwaadiniinta Jamhuuriyadda Soomaaliland gudo iyo dibadba dhammaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh anigoo ixtiraamaya baarlamaanka sharafta leh ee Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana gudanaya waajibka dastuuriga ee faraya inaan idinka warbixiyo xaaladda guud ee dalka iyo qorshaha geediga aynu hore ugu sii soconayno waxaan ku bilaabayaa ducada iyo xuska ay naga mudan yihiin dhammaan halyeeyadii qaranka kala soo dabaashay marxaladii kala dambeeyay ee la soo maray kuwii naftooda u horay gobonnimada hogaamiyayaasha kala dambeeyay ee mudan ee ummadan u soo adeegay iyo geesiyada imaka dirayska u xidhan adkaynta nabadda iyo ilaalinteeda quweynta qarannimada aynu ku naaloonayno waxaan mar kale xaqiijinayaa waajibnimada qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inaan gorgortan laga geli karin wadajirka israacsanaanta dhuleed qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland dhowrsanaanta sooyaalkeeda hiddaha iyo dhaqankeeda ummadeed mudane gudoomiye qarankeenu waxa uu marayaa marxalad muhiimad gaar ah leh marxalad ay waajib tahay inaynu jaangayno jihada aynu mustaqbalka u dhaqaaqayno waxaynu ka soo doogaynaa duruufo adag oo ka dhashay culasyadii hoos u dhaca dhaqaale ee soo jiitamayay 3 sano ee u dambeeyay nabadgelyadii iyo wadajirkii qaranka ee wiiqmay hoos u dhicii ku yimid dimuqraadiyadeena iyo ismariwaagii siyaasadeed ee sababay dowladii doorashooyinka boqolkii maalmood ee ugu horreeyay muddada ay xukuumaddu xilka haysay tallaabooyin muhiim ah oo istiraatiijiyadeed ayaa la qaaday si ay dib ugu soo dhisto kalsoonida muwaadinka una adkayso dhidibada nabadda isla markaana ay hirgeliso isbeddelkii ay ballan qaaday ee ummaddu ku siisay kalsoonida maanta ammaanka guud iyo nabadgelyadu wuu sii xoogaysanaya dhaqaalihii xasilooni iyo dhaqdhaqaaq kobac abuuraya ayaa galay
dib u habayn ballaaran baa ka socota garsoorka iyo nidaamka maamul ee hay'adaha dawladda adeegyadii dadweynaha iyo arrimihii bulshadu way sii fidayaan xiriirkii aynu dunida la lahayn iyo iskaashigii caalamiga ahaana firfircooni iyo dhiig cusub ayaanu gelinay waxa ka sii muhiimsan in la soo celiyay wax wada lahaanshiyihii qaybaha kala duwan ee muwaadiniinta iyo in si intii hore ka badan looga qayb geliyay hoggaanka talada mustaqbalka dalka waxa soo dhanoo jira haddana weli waxayna hor yaalla caqabado aynaan dhayalsan karin in dhaqaaluhu si buuxda u soo kabto waxay u baahan tahay in khayraadkeenna aynu si rin ah uga faa'iidaysanno adkaynta nabadda iyo wadajirku shaqo badan ayaa weli u harsan waxqabadka boqolka maalmood ee xukuumadda difaaca iyo ilaalinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland nabadda iyo ammaanku waa seeska horumarka iyo gaashaanka dawladnimada boqolka maalmood ee hore waxa xukuumadayda wadajir iyo waxqabad u suurto galay fulinta tallaabooyin muhiim ah waxaanu qaramaynay hubkii iyo ciidamadii madaniga ahaa oo aanu tababaro u bilownay kuwaasoo maanta ah cudud ku soo biirtay ciidamadeenna qaranka waxaanu tiro koob iyo diiwaangelin buuda isha ah ku samaynay dhammaan ciidamadeenna si aan u sugno tirada saxa ah ee ciidamada qaranka ee kala duwan meeshana uga saaro magaca iyo jiritaanka ereyga la yiraahdo caagle taasoo fura u ah bilowga mushahar kordhin ballaaran oo aan u samaynayno ciidamada maanta askarigu waxa uu mushaharkiisa toos uga helayaa khasnada qaranka askariga iyo qoyskiisu waxay heli doonaan daryeel iyo adeegyo bilaash ah xukuumaddu waxay horumarin doontaa nidaamka dallacsiinta iyo abaalmarinta ciidamada waxaanu tababaro cusub uga faa'iideynay in ka badan 700 oo sarkaal kuwaasoo qaarkood aanu dalka dibadiisa ugu diray tababaro heerkoodu sareeyo waxaanu tiknoolajiyad iyo aqoon casri ah ku soo kordhinay laanta socdaalka iyo ciidamada ilaalada xeebaha aanu 3 laab kordhinay awoodooda sugidda ammaanka xuduud biyoodkeena waxaanu sidoo kale kor u qaadnay heerka ammaanka dhammaan garoomada dayuuradaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland si loo adkeeyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadaydu waxay maanta ku dhawaaqaysaa abuuritaanka ciidanka kaydka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dawlad wanaagga iyo habaynta garsoorka xoojinta iyo tayeynta maamulku waa seeska uu ku dhismo dawlad wanaaggu annagoo aragtidaas ka duulayna si ay tayada adeegyada ay bixiyaan boqolkii maalmood ee hore waxaanu dib u habayn ku samaynay shaqada hay'adaha dawladda waxaana la hoojiyay hufnaanta iyo isla xisaabtanka xukuumaddu waxay curisay ama kaabis dib u eegis iyo wax ka bedel ku samaysay xeerarka xaydaabka sharci u noqonaya daafurnaanta iyo sarreynta sharciga sidoo kalena waxaa la dhammaystiray siyaasadaha qorshayaasha iyo istiraatiijiyadda seeska u noqon doona dib u habaynta maamulka iyo dawlad wanaagga muddo xileedkan kooban xukuumaddu waxay hirgelisay dib u habaynta cashuuraha iyo ururinta dakhliga iyadoo la tirtiray galdaloolo kasta oo wiiqaysay maamul wanaagga dakhliga dawladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa dakhliga dawladda 3 biloodka koowaad January ilaa March waxa uu kordhay 9% marka la barbar dhigo labadii sano ee ka horreeyay xukuumadaydu waxa ka go'an inay xoojiso sarreynta sharciga madaxda xukuumadduna ay kow ka noqdaan ku dhaqanka sharciga xukuumaddu waxay bilowday qorshaha dib u habaynta garsoorka si loo xoojiyo cadaaladda madax bannaanida iyo kalsoonida ay dadweynuhu ku qabaan
sharciga iyo nidaamka garsoorka ee dalka horumarinta dhaqaalaha mudane gudoomiye muddadii koobnayd ee xukuumadaydu xilka haysay waxay qaaday tallaabooyin la taaban karo oo fure u noqday dabarka furista awoodda dhaqaale ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu bilownay dhismaha iyo dibidhiska wadooyin muhiim ah kuwaas oo deegaano halbowle u ah xoolo dhaqashada iyo beeraha ku xidhaya suuqyada gudaha magaalooyinka iyo dekedaha 7 wado oo muhiim ah ayaa qaar la bilaabay dhismahooda la dayactiray ama la dhamaystiray daraasadda dhismahooda waxa kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee isku xidha Hargeysa Balligubadle iyo Boorama Baki waxaanu iyadana dhamaystiray wajiga qiimaynta ahaa ee dhismaha dekeda Lughaya taasoo dhabaha u xaadaysa inay mustaqbalka aan ka dhigno xudin muhiim ah oo ganacsi xukuumadaydu waxay go'aamisay hoos u dhigista qiimaha korontada magaalada xeebeedka Berbera oo laga bilaabo July 2025 noqon doonta 20 senti kaasoo noqon doona qiimaha ugu jaban magaalooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna la xoojiyay shabakadda korontada ee magaalada Saylac taasoo saameyn toos ah ku yeelan doonta nolosha qoysaska magaalada xeebeedkan waxa la dhamaystiray 32 ceel biyood dhaamam iyo barkado si muwaadiniinta deegaanada oomanaha ah loogu fududeeyo helitaanka biyaha cabitaanka iyo waraabka xoolaha iyo beeraha gaar ahaan xilliyada abaaraha waxaanu caawimo farsamo iyo qalab nidaamin dhiirigelin iyo aqoon kororsi u sameynay kalluumaysatada iyo beeralayda dalka waxa meel fiican maraya qorshaha hirgelinta maalgashi dibadeed oo lagu warshadaynayo wax soo saarka xoolaheena ee hilibku ka mid ka yahay si loogu dhoofiyo suuqyada caalamka waxqabadka dhaqaalaha ee mudnaanta u leh xukuumaddan annagoo ku salaynayna waxqabadkaas muddada kooban noo suurto galay istiraatiijiyada dhaqaale ee xukuumaddu way xoogga saaraysaa 3 aag oo aanu aragno inay kordhinayaan wax soo saarka gudaha GDP ee dalka iyo miisaaniyadda qaranka aaga koowaad xoojinta wax soo saarka dalka kalluumaysiga waxaanu dhamaystiri doonaa casriyeynta iyo kobcinta kaabayaasha iyo aqoonta farsamo ee kalluumaysiga iyo suuqgeyntiisa gudaha iyo dibadda xoolaha waxaanu sii xoojin doonaa dadaalada bilowday ee horumarinta xoolaha in la kordhiyo daryeelka caafimaadkooda iyo daaqsinkooda iyo in dhoofka xoolaha nool lagu kordhiyo maalgashiyo dibadeed oo dalka gudihiisa ku warshadeeya wax soo saarka xoolaha beeraha si ay Jamhuuriyadda Soomaaliland u noqoto dal soo saara cunto ku filan waxaanu xoojin doonaa horumarinta beeraha gaar ahaan nidaamka waraabka daryeelka caafimaadka beeraha warshadeynta fudud ee wax soo saarka cuntada iyo inaynu xoojino suuqa gudaha ee wax soo saarka beeraha xukuumadda wadajir iyo waxqabad waxay maalgelin dibadeed u heshay 2 mashruuc oo lagu casriyeynayo laguna horumarinayo wax soo saarka beeraha kuwaas ay maalgelinayaan hay'adda Faro Foundation oo gelinaysa $20 milyan iyo dawladda Jarmalka oo gelinaysa $22 milyan macdantu waxay ka mid tahay khayraadka waaweyn ee weli dihin qorshaha xukuumaddu waa in maalgelin dibadeed iyo mid gudaba loo raadiyo si loo kordhiyo sahaminteeda soo saaristeeda iyo u dhoofinteeda suuqyada caalamka aaga saddexaad dakhliga iyo kala duwanaanshaha dhaqaalaha economic diversification cashuuraha casriyeynta nidaamka cashuuraha ururinta iyo ballaarinta salka cashuuraha si dhaqaale loogu helo horumarinta muhiimka ah ee adeegyada dawladdu bixiso maalgelinta hal-abuurka ganacsiga kobcinta maalgelinta hal-abuurka ganacsiga ee muwaadiniinta gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka dekeda Berbera waxa naga go'an ka faa'iideynta dekeda Berbera ee ballaarinta iyo casriyeynta lagu sameeyay korna loo qaaday tayada adeegyadeeda ay bixiso si loo kordhiyo
deegaanada xuduudka ka baxsan ee ay u adeegto dekeddu aaga saddexaad kaabayaasha dhaqaalaha iyo tamarta xukuumaddu waxay sii wadaysaa dhismaha iyo sii ballaarinta wadooyinka istiraatiijiga ah dekedaha iyo garoomada diyaaradaha si ayn wax ula qaybsanno suuqyada gobolka tamarta dabiiciga ah ayaanu iyadana xoojin doonaa annagoo maalgelin u raadin doonaa tamarta laga dhaliyo qorraxda dabaysha iyo haydarajiinta si koronto jaban loogu helo muwaadiniinta adeegyada wax soo saarka iyo warshadaha magaalada berbere iyo bowrame waxaa baanka adduunku gelinayaa $30 milyan taasoo lagu maalgelinayo korontada cadceedda laga dhaliyo dhibaatada isbeddelka cimilada waxay ka mid tahay caqabadaha ugu daran ee curyaamiye dhaqaalaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku jirtaa dalalka ay gaadheen raadadka dhibaatada ee isbeddelka cimiladu waxaanu xil gaar ah iska saarnay daryeelka deegaanka xakamaynta biyaha iyo cunto yaraanta iyo ka hortagga guud ahaan dhibaatooyinka isbeddelka cimilada siyaasadda xukuumaddaydu waa in la ilaaliyo deegaanka lala dagaalamo xaalufinta muddo xuleedka xukuumaddayda waxaa la beeri doonaa 3 milyan oo geed taa macnaheedu yahay inaynu sanadkii beero 600,000 oo geed maalinta qaranka ee dhirbeerista jamhuuriyadda Soomaaliland oo loo asteeyay 15 Abriil waxa la beeray 300,000 oo geed arrimaha bulshada iyo adeegga dadweynaha waxaanu aaminsanahay inay waajib tahay in muwaadiniintu ay dawladda ka helaan adeegyo ay u siman yihiin muddadii 100 maalmood ahayd waxa xukuumaddayda u suura gashay inay dardar geliso adeegyada dadweynaha 77 goobood oo rugo caafimaad iyo cisbitaal la isugu jira ayaanu dib uga shaqaysiinay ama adeegyadooda dib u habayn iyo dardargelin ku samaynay taasoo kordhisay tirada hooyooyinka xilliga umusha la soo gaarsiinayo rugaha caafimaadka gaar ahaan deegaanada ka fog goobaha caafimaadka sidoo kale waxaanu bilownay dib u habaynta waxbarashada dalka tallaabooyinka la qaaday waxaa ka mid ah casriyeynta horumarinta manhajka oo lagu dari doono casharro waxtar u leh dhismaha bulshada kuwaas oo ka mid yihiin dhismaha wacyiga wadaniyeed ee ardayga akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan ilaalinta deegaanka iyo la dagaalanka takoorka waxaanu culays saaray inaanu dejinno qorshayaashii aanu ku hirgelin lahayn kordhinta tirada hablaha iskuulada gala iyo in la yareeyo ardayda waxbarashada ka hadha waxa kale oo aanu bilownay dejinta manhajka waxbarashada jeelasha si looga hortago caadaysiga dambiyada lana dhiirigeliyo in maxbuusku marka la sii daayo uu bulshada wax tari karo isna shaqaysan karo waxa xukuumadda u suurto gashay inay waxbarasho bilaash ah la siiyo qaybta koowaad ee agoomaha ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca kalena waxaanu bilownay dib u habaynta shaqada iyo shaqaalaha dawladda hirgelinta sanduuqa hawlgabka iyo in kor loo qaado kaabayaasha shaqada fududeeya ay ka mid yihiin tiknoolajiyadu waxaana la tababaray 54 shaqaale ee ugu horeeyay arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxay xukuumaddaydu dadaal weyn gelisay dib u soo noolaynta xidhiidhadii caalamiga ahaa iyo saaxiibadii ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku lahayd dunida waxaanu ka shaqaynay in codka Soomaaliland laga maqlo fagaarayaasha caalamiga ah siyaasadaydu waa inaynu dunida ka qancinno aqoonsiga Soomaaliland kaasaynu xaq sharci ah u leenahay cid kasta oo inagu garab siisana aynu ugu hayn doono abaal raaga iyo saaxiibtinimo ku dhisan dano isdhaafsi waxa sharaf noo ah muddadii koobneed ee xukuumaddaydu jirtay inaanu kulamo midho dhal ah la yeelanay madaxda dawladda aynu saaxiibka nahay ee isutaga imaaraadka carabta
waxay naga aqbaleen inay dalkeena maal gashadaan iyo inay gacan naga siiyaan sidii wax soo saarka Jamhuuriyadda Soomaaliland loogu heli lahaa suuqyo cusub oo caalami ah sidoo kalena ay ganacsatada dalkooda ku dhiirigeliyaan kuna garab siiyaan maalgashiga Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan xoolaha beeraha kalluunka iyo macdanta hawsha dhamaystirkeeda waxa hadda ku hawlan gudiyo farsamo oo ay labada dhinac u magacaabeen dawladda Imaaraadku waxay naga caawin doontaa kaabayaasha caafimaadka waxbarashada biyaha iyo wadooyinka waxaan ka qayb galay shirkadaadkii caalamiga ahaa ee dawladaha oo lagu qabto Dubai sanad kasta World Governments Conference anigoo martiqaad rasmi ah ka helay dawladda Imaaraadka shirka waxa ka soo qayb galay in ka badan 140 dal waxaana yimaada madaxweynayaal ra'iisul wasaareyaal madaxweyne ku xigeenno wasiiro madax hore oo caan ah shirkadaha dunida ugu waaweyn iyo maalgashadayaasha dunida ugu waaweyn shirkaas waxa uu dardargeliyay xiriirka caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo in miisaankeena diblomaasiyadeed uu dib ugu soo noqdo fagaarayaasha caalamiga ah sidoo kale waxa uu ahaa fursad aynu suuqgeyn weyn ugu sameynay khayraadkeena dihin ee maalgashiga caalamiga u baahan fariinteennii Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aan shirka ka diray waxay gaadhay in ka badan 50 milyan oo qof waanu xidhiid iyo galaangal muhiim ah oo diblomaasiyadeed la yeelanay dalalka muhiimka ah ee naga kaalmayn kara qadiyadeena waxa ka mid ah Mareykanka waanu xoojinay dadaalada aanu ku sii dhiirigelinayno danayntiisa Soomaaliland iyo Ingiriiska aanu ka helnay kaalmo dhinaca ammaanka ah iyo iskaashiyo dhinacyo badan leh dalalka saamaynta ku leh siyaasadda geeska Afrika iyo daneeyaasha caalamiga ah waxay nagu bogaadiyeen dadaaladeena qaramaynta nabadaynta iyo dib u heshiisiinta aynu ka wadno gobolada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland dadkayga waxaan kala dadaalayaa dib u dhac nololeed iyo isku dhac umadeed taas baana ay faraysa inaan gacanna kaga shaqeeyo horumarka gacanna nabadgelyada iyo ammaanka xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay sii xoojinaysaa xiriirka taariikhiga ah ee ku dhisan daris wanaag walaaltinimada iyo iskaashiga aynu la leenahay dalalka Itoobiya iyo Djibouti waxayna qorsheynaysaa safarro aan ugu bixi doono dalalkaas xukuumadda Soomaaliland mowqifkeeda ku aadan imaatinka wasiirka koowaad ee Soomaaliya ee deegaanada bariga Sool ee Soomaaliland waxay ku cadaysay warmurtiyeedkii aan ka soo saarnay shirkii 16aad ee golaha wasiirada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aan shir gudoominayay Arbacadii 16 Abriil 2025 kaas oo Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku laashay wada hadaladii Soomaaliya xukuumaddaydu waxay beesha caalamka ku wargelisay in imaatinka wasiirka koowaad ee Soomaaliya uu yahay xadgudub qarannimada Soomaaliland iyo dagaal qaawan oo Soomaaliya ku soo qaaday Jamhuuriyadda Soomaaliland si ay u khalkhal geliso una wiiqdo dadaalada nabadaynta iyo walaalaynta ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wado oo tacab weyn iyo halgan adag ku yimi mar labaad waxaan ka digaynaa in xadgudubkaasi uu sababi karo colaado sokeeye oo soo degdega Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dalalka dariska ah iyo beesha caalamka ah ku wargelinaysaa inay sii wadayso dadaalada nabadaynta walaalaynta daris wanaaga hase yeeshee waxaan xasuusinayaa inay Soomaaliland awood buuxda u leedahay inay gardarro kasta iska difaacdo midnimada qaranka iyo dimuqraadiyadda dalka
mudana gudoomiye mudanayaasha sharafta leh anagoo ka duulaya aragtida siyaasadeed ee xukuumadda iyo guulahan bilowga ah ee xukuumaddu gaadhay boqolkii maalmood ee horeeyay waxaan ka hawlgalnay dhammaystirka midnimada qaranka iyo qiyamka dimuqraadiyadda oo dubdhaxaad u ah siyaasadayda awoodda iyo sumcad wanaagga jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku yimaadeen nidaamkeena dimuqraadiga ah dhaqankeena wada tashiga iyo xalinta khilaafaadka ah iyo adkaysiga dadkeena waxaanu qaaday tallaabooyin muhiim ah aanu ku xoojinayno waaritaanka xasiloonida iyo wada lahaanshiyaha dawladnimada waxaanu aasaasnay hay'ad qaran oo u gaaran nabadda iyo isu soo dhaweynta muwaadiniinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhaqameed sida u kala sareeyaan ayaa loo kala guraa ee waxaanu shaqada ka bilownay qaybaha bulshada oo aanu ka qayb gelino talada qaranka oo ay matalaad ku yeeshaan si aanu u soo noolayno kalsoonidii muwaadinku ku qabay dawladdiisa waxaanu kulamo la yeelanay dhammaan qaybaha bulshada ee ka mid yihiin golayaasha qaranka culimada madaxda dhaqanka ganacsatada aqoonyahanka oo isugu jira rag iyo dumarba warbaahinta iyo halabuurka iyo suugaanleyda si aan u dhageysano aragtidooda iyo taladooda ay ku darsanayaan qarankooda mudane gudoomiye arrimahaas aan ka warramay waxay ka turjumayaan sida ay nooga go'an tahay inaanu gaadhno himiladayda oo ah in la abuuro Soomaaliland ay midnimada wada lahaanshiyaha cadaaladda nabadda iyo dimuqraadiyaddu sidaas u yihiin dawladnimadeeda waxaanan ilaaweyn inaan bogaadiyo beelaha walaalaha ee ceelaf weyn wada yaalla madaxdooda dhaqankooda xildhibaanadooda aqoonyahankooda iyo siyaasiyiintooda oo dhammaantood nagala shaqeeyay in la soo afjaro colaadda inagu raagtay ee ceelaf weyn ciidamadii labada beelood iyo hubkoodiina lagu wareejiyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa salaadiinta cuqaash iyo xeerbeegtida ka garnaqday soona afjartay colaaddii guunka ahayd ee ceelaf weyn oo iyagu muddo bilaa arrintaas aanu kala kicin una dhabaradaygay waa guul weyn oo aynu ku joojinay dhiigga muwaadiniinta ee mancadarrada ku daadanayay muddo ka badan 9 sannadood waajibka noo yaalla waa inaanu ka shaqayno horumarinta deegaanadaas waxaanu mahad celinayaa beel kasta ama deegaan kasta oo qarameeyay gaadiidkiisii hubkiisii iyo ciidankiisii madaniga ahaa oo maanta noqday ciidan qaran oo aynu ku faano waxaan dhammaantiin idinka codsanayaa inaynu shacabka u tunno madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland walaalkay Maxamed Cali Aw Cabdi iyo wafdigiisii isugu jiray wasiirada xildhibaanada madax dhaqameedka taliyaasha ciidan iyo haldoor kale oo arrintaas tacab waqti iyo dadaal qarnimo ah geliyay hay'adaha qaranka ee baarlamaanku ugu muhiimsan yahay iyo axsaabta siyaasadda waxaan ka codsanayaa inaynu iskaashi wada shaqayn wada tashi ku gaadhno danta guud ee qarankeena iyo dhismaha mustaqbalka wanaagsan ee ubadkeena muwaadiniinta waxaan ugu bishaaraynayaa guulaha la taaban karo ee aynu gaadhnay muddadii koobnayd ay yihiin bilow waqti iyo shaqadii miisaanka lahaana way noo hadhsan yihiin dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo isugu jira hablo iyo inamaba waxaan ugu baaqayaa inay isu diyaariyaan qaadista xilka ka saaran diyaarinta mustaqbalka dalkooda iyo inay ka qayb galaan dadaalada arrinta lagu gaadhayo
dawladdu wado iyo inay hal abuur iyo karti la yimaadaan si ay iyagu hoggaanka ugu qabtaan geediga waayeelka hoggaanka dhaqanka aqoon-yahanka iyo bulshada waxaan ugu baaqayaa inay xigmadooda waayo aragnimadooda aqoontooda iyo taariikhda ay hayaan uga faa'iideeyaan dadaalada dhismaha qaranka si gaar ah haweenkeena oo dubdhaxaad u ah bulshada waxaan ugu baaqayaa inay kaalintooda ka qaataan dhismaha qarankooda ay jecel yihiin aynu dhammaanteen ku hoos midowno calankeena gacmaha isu qabsanno dhismaha qarankeena iyo inaynu gaadhno himiladeena aqoonsi الله بركة جمهورية الصوماليلاند نبتقليو قرنمو يهرمرنا هكوارا قرن كينو إن شاء الله دولها بارلمان جمهورية الصوماليلاند